iyadoo maalintii shalay ahay shaqaalaha takada berbera ee xarunta gobolka saaxil ay mudaharaadyo banaanbaxyo ku dhigayeen suuqyada iyo laamiyada magaalada berbera shaqaalahaasoo ka soo horjeeda shirkadda xukuumadda Soomaaliland ku wareejisay ee DP World waxaana maalintii labaad ee magaalada berbera ka socda mudaharaadyo lagaga soo horjeedo shirkadda DP World ee la wareegtay takada magaalada berbera mudaharaadadaas oo ay dhigayaan shaqaale weynaha takada magaalada berbera waxaana shaqaalahani maanta ku banaanbaxeen duulaadka madaxtooyada iyo hamaasha dalka magaalada berbera shaqaalahan mudaharaadaya oo hadalka u kala dambeeyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa mushaharadan ku shaqeynayna waxay ahaayeen ninka ugu sarreeya $200 gunooyin baan lahay gunooyinka iyaga way jareen shaqaali way dareeriyeen shaqaale barmana baan lahay waxa cadaynaysa inaan shaqaale barmana ahayn qofka dhintay waxa lagu bedeli jiray ilmihiisa lagu bedeli jiray xaqiisoo dhamaystiranna waa la siin jiray sidaas ay ahayd rag baa 30 sanood iyo 40 sanood ka shaqaynayay ilaa xuquuq bay ku tagaysaan bay dhahay hanjabaad bay ku dareen waxay jareen wixii nidaamkii ka jiray dekada nidaam baa dekada ka jiray nidaam baa dekada ka jiray nidaamkii dekada ka jiray ee shaqaalaha iyo yiilay board authority meesha way ka saareen mana bixinayna bay ilaahay mana naqaanayna board authority meesha way ka baxday heshiiskayga waxa ku jirta board authority waa laga joojiyay shaqadeedii yaan u shaqaynayna markaa waxaana loogu sheegay inay wax soo kordhinayaan shaqaale badan keenayaan arrinkaasi arrin dhacay maaha oo fashilmay waxay leeyihiin shaqaale xuquuq nagu leh ma jiro mid la kordhinaya ma jiro kuwana idinkana iska taga imika dareere dekad la kordhinaya ma jirto kama kalluumaysan kartaan waxay ku taallaa heshiiska ay soo bandhigeen inaanna ka kalluunsan karin taasi waxay cadaynaysaa inay dekada la iibiyey ayay cadaynaysaa dhicina mayso waananu ka dagaalamaynaa inta halkaa joogtoo dhammi maaha shaqaaliyo kale waxa weeye ummadii deganayd berbera deegaankii weeye berbera deganaa ee Soomaaliland waxaanu leenahay nin nagaga soo hari maayo waa in badan bay dawladdu hanjabtay in badan bay dawladdu hanjabtay waxaanu leenahay hanjabaysay soo bandhig hadduu ahaa mid xalada ka dhaca iyo hadduu ahaa mid la yiraahdo RRU fadala ayay shirkadan lagu wareejiyay dekada ee cid ku wareejisana aan la garanaynin meel ay ka yimaadeen aan la garanaynin cid ay u shaqeeyaan aan la garanayn ee shaqaalihii dekada 270 qof ayaa shaqadii laga eriyay dawladdu kama hadlin maxaa shaqaalaha lagu eriyay may oranin muxuu ahaayay cid kale oo soo hadal qaaday maamulkii gobolka kama hadlin waxay yiraahdeen waxaan ka keesanaa shaqaale Filibiin baan ka keesanaa iyo Jamal Ali waxa weeye anagu markaa waxay ka hadlayaan dadkan meesha maqanta tubani inaan wax shaqaale oo magaalada la keenaya aanu jirin DP World aanay halkan aanay joogeen oo aanay ka shaqaynaynin military base la keenayana aanu jiraynin waxa kale oo inta ay ku daraya dawladdu dalkeedii bay xaraashaysaa especially berberay xaraashaysaa sabab ay u xaraashaysana lama garanayo waana la guumays ayaa shilinkii geelle ayaa meel alaale meel lagu hagaagna xilliga la leeyahay anagu dekad ma hayso shaad kale ma hayso waxaan leen waanu ku dhex gawrici hadii waanu ku dhex gawrici doon waanu ku shahiidayna si dhiigayga iyo dhiigayga midkaadina la siin waay waxa la yiri shirkad baa idin qabsanaysa sanka caana laga leefaya war iyagoon kiriin bakeelin ayay dadkii kala badheeriyeen kala bandha yiraahdeen waxaan ku keensanaa Jamal Ali anagu ma aragna shirkad la yiraahdo DP World sheekadii argaysan ka dhacday milxiisadii asmacooday weeyaan anu ka xunaa DP World ku sameeyay dhalinyarta curdinka ee aqoonyahanka ay digada loo shaqeeyay 150 qof oo shaqaalaha baa leeyahay intii hadayna maanta waa la dareerin waxa ku jira dad xaasnay waxa la yiri milyan iyo 500 ugu shaqeeyay intii dhamaayo 10 ciyaar oo soo bariistay waxaan ka xunahay dawladda Soomaaliland ilaahay horumar baan u soo wadnaa dadkan iyo dalkan waa leeyahay waxayna qabsadeen dad tuuga waxayna qabsadeen dad soo boogtigay waxayna qabsadeen dad madaxeynayay waxaan ka hadlayaa gobolka saaxil dhibaatada haysta waagi bariibe waayo anigu ma ii shaqaalin dekada laakiin waxaan hay dadweynaha ku nool waxa weeyaan waagi bariibe waxa la yiraahdaa haami baa leeyahay laarki baa leeyahay meel walba la dekadi baa hadhay anagu dadki biyo baa leeyahay waxba kuma nool maxaa ku lumay berbere hadii wali soo gaaraan waxba kuma noolin waxba lagu soo kordhinaya wadanka horumar baa laga sameeyaa baa leeyahay
laakiin wax horumar oo laga sameeyaa ma jirto dadka waxa weeye ninkii birta halkan dhigtay gawaadhida yiri war cashuuraya ayuunba yiri dhibi walba tuwankii lacagta dawladdu wuxuu ku go'ayaa tuwan qof leeyahay bilaadani dadkiina 300 horan waa leeyay 500 dambana waa leeyay inta soo hadhayna waxa la yiri kamal xali baa shaqaale ka keensanayna baaq ugu dirayda in dalkii la iibiyay Soomaaliland inay tahay isha kaliya saaxil ee la isugu yimaado waxaanu ka codsanaynaa caalamka in laga soo gaaro in dawladda la naga soo gaaro dawladda waxba u sheegan meena siirayaha la naga qabto haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa naga go'aana oonan marnaba ka libiqsanayn sida xaaraanta ah ee maseer xumada ah ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaankeedu maanta damcayn uu kufsado ummadda qaranka ee ku nool gobolka saaxil waa mid aan laga yeelin barnaamijyada madaxweyne mana soconayso culadalada ku dhiman doonaan ugu haddaan tallaabada laga qaado isku soo wada duuba waxa maalintii labaad magaalada Berbera ka socda mudaharaado lagaga soo horjeedo shirkadda xukuumadda Soomaaliland ku wareejisay DB World iyo ilaa hadda xukuumadda Soomaaliland waxba ka odhan shaqaalahan joojiyay shaqadii ay ka shaqayn jireen sidoo kale waxa shaqadu maanta taagan tahay takada magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil Istiqaarab Saleebaan telefishinka caalamiga Kalson TV magaalada Berbera